بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن وعن مeel kasta adduunka joogtaan walaalaha sharafta leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiina iyo dambigoodkina dhaafo. Kusoo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono qayb kamid ah ahkaamta furitaanka. barnaamij hore oo waxa jira aan hore uga soo hadlay oo ku saabsanaa ahkaamta furitaanka. barnaamijkaas su'aalo badan ay dadka naga soo weydiiyaan qaybo kala duwan culimada islaamka ay weydiiyaan. barnaamijka maanta waa barnaamij gaar ah oo aan rabo inaan uga hadlo dhowr qodob oo muhiim ah. dhowrkaas qodob oo kala ah xukunka marka gabadha saddex dalqadood oo wada socdo lagu furo meeqa dalqad ayaa laga soo qaadayaa. sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka hadalno qodob muhiim ah. ragga qaar waxay yiraahdaan dumarkeeni ayaana qasbay markayna qasbeen ayaan furnay. waxaan ka hadli doonaa talaaqa la yiraahdo talaaqul makruh ama qofka la qasbo marka uu wax furo furitaankaas ma dhacaya isqasbidu noocay tahay ayadana waan ka hadli doonaa. dadka qaar waxay raadiyaan qiil marka la isfuro oo ay arrintii kala dhamaadaan waxay raadiyaan qiil waxay la xiriiraan culimo kala duwan haddii ay heli waayaan jawaab ay ku qancaan sheekha kale ay u gudbaan si ay u helaan jawaab ay ku qancaan. waxaan kaloo ka hadli doonaa gabadha marka la furo مثلا hal dalqad ayaa lagu furay ciddadii ayay ku jirtaa ninkeeda weli way iskhilaafsan yihiin khilaafkii ay iskhilaafeen weli wuu jiraa ayadii ma rabto ninkiina wuxuu yiri waan ku soo xishtay asagoo raba inuu muddada ku dheereeyo oo gabadha dhibo. qodobka kale oo aan rabo inaan ka hadlo oo soo noqnoqdo waxay tahay anigoo xanaaqsan ayaa xaaskayga furay ama gabadhii waxay leedahay ninkaygu xanaaqsan ayaa ay furay asagana qofka xanaaqsan dalaaqiisa ama furitaankiisa ma dhaca. haddaba qodobkii koowaad haddaan dib ugu laabto oo ahaa gabadha haddii saddex dalqadood oo isla socdo oo la yiraahdo saddex ayaad ku furan tahay oo uusan ninka kala qaadin saddex ayaad ku furan tahay hadduu hal mar iswada raaciyo ma waxaa laga soo qaadayaa hal dalqad ayaa laga soo qaadayaa mise saddexdii dalqadoodba hal mar ayay dhacayaan gabadhii iyo ninkaasna way u kala dhamaatay oo dib dambe iskuguma laaban karaan. arrintaasi culimada islaamku isku khilaafeen waxayna iskugu khilaafeen laba qaybood. culimada islaamka badankood waxaa la yiraahdaa jamhuurul culamaa oo ay ugu horeeyaan afarta madhab waxay isku raaceen oo ay yiraahdeen haddii uu ninka gabadhiisa ku furo saddex dalqadood oo isla socota waxaa laga soo qaadayaa saddex dalqadood oo isla socda dalqadihiina way ka dhamaadeen gabadhaasna uma banaana ilaa ay iskeed nin kale usoo guursato ninkaasi ay kala tagaan kadib ayuu nikaax cusub ku guursanaya. waxaa jira culimo la yiraahdo muxaqiqiin oo culimadaas ka soo hartay haddii culimada islaamka مثلا u qaybina 100% ay 80 dhaheen dalaaqaasi u dhacayaa 20% oo aad iyo aad ayagana xujadoodu u adag tahay ayaa waxay leeyihiin talaaqaasi waxaa laga soo qaadayaa hal dalqad ayaa laga soo qaadayaa. waxayna cuskadeen adilo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay waxaa la sheegaa nin baa xaaskiisa wuxuu ku furay saddex dalqadood nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu xanaaqay wuxuuna yiraahdaa ayulcabu bikitaabillahi wa ana bayna adhurikum ma waxaa lagu ciyaarayaa oo jees laga dhiganayaa kitaabka ilaahay anigoo idinla jooga. sidoo kale waxaa la wariyaa in saddexda dalqadood oo la isku furo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilligii khilaafada abubakar iyo khilaafadii cumar iyo khilaafadii cuthmaan gaar ahaan khilaafadii cumar labadii sano ugu horeysay laga soo qaadayay saddexda dalqadood oo la isku furo hal dalqad laga soo qaadayay ayadoo arrimahaas la fiirinayo ayadoo la fiirinayo maslaxadda muslimiinta ayadoo la fiirinayo in muslimiinta loo dhimriyo waxaa habboon ay culimadaasi sheegeen gabadha haddii saddex dalqadood hal mar lisu raaciyo in laga soo qaadayo hal dalqad. arrintaasna aad iyo aad ayay u fiican tahay wax dhibaato ana ma lahan dadkana waxaan u sheegnaa annagoo ictimaadinayna culimadaas iyo aqwaashaas iyo adilooyinkaas in haddii gabadha saddex lagu furo laga soo qaadayo hal dalqad laga soo qaadayo. qodobka kaloo muhiimka waxay tahay gabadhii waxaa lagu furay dalqad ayaa lagu furay ciddadii ayay tirsanaysaa ninkeedina maysan heshiinin kii furay ayadina ma rabto laakiin sidaad ogtihiin ninka wuxuu xaq u leeyahay inuu gabadha soo ceshto haddaba xaq mu u leeyahay ninkaas inuu gabadha soo ceshto. dumar badan dhibaato ayay arrintaas ku qabaan wayna ka doodaan ninkii anigoo rabin ayuu soo ceshtay ninkiina gabadhii wuu soo ceshanayaa si uu dhibo. horta in lisa soo ceshto kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku taallaa laakiin arrintaasi siday dad badan moodeen ma ahan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waalmuطallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna 3 quruu hablihii la furay waxay sugayaan 3 quruu. quruugaasi waxaa la yidhahdaa waa 3 dhiig ama waxaa la yidhahdaa 3
markay dhiig ka qubaysato macnaha dhiig baa ku dhacay way ka mayratay dhiig kalaa ku dhacay way ka mayratay mid kalaa ku dhacay way ku mayratay markaas ayay ciddad baxaysaa dadkuna aad ayay u yaqaanaan sida ciddada loo tiriyo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fi dalika in araaduu islaaxa wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna inay raggoodii loo celiyo oo nikaaxoodii hore lagu celiyo intay ciddada ku jiraan ayaa xaqnimo badan ayaa mudan sidaas ayaa fiican laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku xiray in araaduu islaaxan haddii ay wanaag doonaan wanaagaasi oo rabitaan labada dhinac ka socda oo ka maran kana madax bannaan in ay isdhibaan ama qofkan qofka kale uu ku dhibo laakiin hadday jirta ka waran cagsi marka arrintaasi waxaa noo fasiray sheekh la yiraahdo cabdiraxmaan as-sicdi raximahullah kitaabkiisa tafsiirka weyn ee qur-aanka ayaa wuxuu aayadda markuu ka hadlayay in araaduu islaaxa wuxuu leeyahay ay raqbatan wa ulfatan wa mawadda haddii ay doonaan rabitaan kalkacayl jacayl way isku soo laaban karaan laakiin wuxuu leeyahay waa mafhuumul aaya aayaddu waxay leedahay fahan qarsoon oo dad badan aysan fahmi karin oo ah in lam yuriiduu lislaaxa haddii aysan islaax doonin macnaha ilahi wuxuu yidhaahday hadday wanaag doonaan laakiin ka hor haddaysan wanaag doonin marka waxaa ku hoos qarsoon falaysuu bixaqa biraddihinna xaq uma lahan in lagu celiyo gabdhahaas raggaas oo doonaya inay gabadha dhibaan oo ilu gooyaan falaa yaxilu lahum an yuraajicuuhunna uma banaana inay gabdhaha soo ceshtaan oo ku laabtaan ayagoo qasdiga inay gabadhaa dhibaan markaasuu wuxuu sheekha leeyahay wa tatwiil alcidda inay ciddadii calayha gabadha ku dheereeyaan yani ma banaana arrintaas marka hadday saas tahay ma u bannaan tahay inuu gabadhi soo ceshto culammada waa isku khilaafeen jamhuur ulculamaa waxay leeyihiin calaa annahu yamliku dalika maca ataxriim ninkaasi way u bannaan tahay inuu gabadha soo ceshto laakiin waa dembiile sheekha wuxuu leeyahy wasaxiixu sida saxiixa ah annahu idaa lam yurid ilislaaxa ninkaasi hadduusan wanaag doonaynin uu rabo gabadha inuu dhibo khilaafkiina uu taagan yahay laa yamliku dalika arrintaasi xaq uma lahan kamaa huwa daahiru alaayati alkariima waana sida ku cad aayadda wanaagsan ee hadda ilaahi subxaanahu watacaala noo sheegay haddaba halkaasi waxaa nooga soo baxday gabadha haddaysan ninka doonayn inuu soo ceshto ninkana uu doonaya inuu gabadha dhibo uma banaana xaqna uma lahan haddii xataa uu soo ceshto waxba laga soo qaadi maayo sida saxiixa ah uu sheekha raximahullahu tacaala noo sheegay arrintaasi haddii aan fahatid dhibaato badan waa laga bixi doonaa iyo isqabqabsi badan waxaa ku soo haray dadka qaar walaalayaal kuma qanacsanaa xukunka ilaahi subxaanahu watacaala mar walbana waxay raadiyaan qiil oo waxay u tagaan sheekh si ay u helaan jawaab ay ku qancaan waana arrin aada iyo aad la yaab u leh mana banaana inuu qofka qiil raadsado asagoo raadinaya jawaab hawadiisa ay raaciso مثلا gabadhi ayuu furay sheekhay xukun ayuu sheegay wuxuuna u sheegay dalaaqaas inuu dhacay sheekhaasuu ka tegayaa sheekh kale ayuu weydiinayaa kolba waxbuu saas u baarayaa si uu jawaab u helo ragga qaar waxay yidhaahdaan xaajiyadii ayaa qasabtay wadaadii ayaa igu dhegtay markaas waxay tiri fur waan furay waa la qasbay horta qasabku marka qof la qasbo talaaqul makruuh la yiraahdo wuu dhacayaa culimada islaamkana waxay isku raaceen talaaqaasi inuu mataqaanaa dhacaynin cafwan talaaqaasi ma dhacayo haddii ninka la qasbo uu naftiisa u baqo oo mataqaanaa khatar uu galo laguna qasbo bistoolad baa maalan lala kor taagan yahay haddii aadan gabadhaan furin waa lagu tooganaya markaas asagoo naftiisa badbaadinaya hadduu yidhaahdo gabadhii waan furay ninkaas waa la qasbay laakiin haddii gabadhi qabsato oo ay garaacdo ama ay kalarka ku dhegto waxaas qasab lama yidhaahdo oo maaha wax uu ka baqeeyay ma aha marka haddii uu saa sameeyo oo dee gabadhii ay isqabsadeen uu sidaa ku furo yani qasab uusan naftiisa u baqayn ahayn talaaqaasi uu dhacaya gabadhiina way ka furmaysaa marka ragow arrintaasi hala ogaado haddii xaajada kalar kugu dhegto oo ay xoogaa ku qasabto ay ku tiraahdo fur ma baxaysid ama halka kama dhaqaaqaysid oo sidaa ku furtid hadda adiga xaajada aad iska furtay oo ma ahayn cabsi aad ka cabsanaysay naftaada aad u baqaysay qodobka kaloo muhiimka waxay tahay walaalayaal ragga qaar waxay yidhahdaan anigoo xanaaqsan ayaan gabadhii furay ama gabadhii waxay ku leedahay ninkii wuu xanaaqsanaa horta dee nin faraxsan gabar ma furo xanaaqase waa jiraa mar la oranayo qofka hadduu xanaaqo uu xanaaqiisa ku dhawaado miyirbeel uu qofkii kala garanaynin wuxuu yiri iyo meesha uu joogo in markaa la oran karo qofkaasi wuu xanuunsaday waxaa laga soo qaadaya sidii qof macnaha maskaxiyan xanuunsan talaaqii uu gabadhii ku furayna waxaa laga soo qaadayaa mid aan dhicin laakiin xanaaq aan maanta naqaano
ay labada qof markay isqabsadaan isku yara qayliyaan oo gabadha ku yiraahdo waa ku furay dee kan xanaaq lama yiraahdo waxaa la yiraahdaa qofka waa go-aan uu gaaray waana wax uu asaga miyirkiisa joogo uu gabadhii ku furay furitaankana sidiisaba waxa keenaba xanaaq baa keena iyo khilaaf baa keena marka gabar la furay iyadoo la xanaaqsan yahay labada qof isku xanaaqeen dee wuu dhacaya laakiin hadduu xanaaq yahay xanaaq qofka miyirkiisa maaragtay uu maqan yahay uusan is ogeyn markaasi waa loo qiildayayaa waxaana la oranayaa furitaankaasi muusan dhicin walaalayaal marka dhibaatooyinka noocan oo kala dhacaan waxaa xalka raadiya dumarka raggu badanaa dumarka waxay yiraahdaan aniga saas marmarsiya keenaan laakiin gabdhaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxay jecel yihiin inay ninkooda xalaal kula joogaan mar walba arrimaha furitaanka arrimaha culimada lala xiriiro waxaa keeno oo ka hadla waa dumarka maasha Allah arrin aad iyo aad u fiican raggu dhibaatada ay sameeyaan dumarkuna xalka ay raadiyaan dumarkuna waa xalaal mirad mar rabaan inay nolol la wadaagaan mar rabaan inay ilmo u dhalaan in furay oo xaraan ay kula joogaan laakiin waayahan dambe walaalayaal waxaa soo badanaya dad aan badalqadaha ka dhamaaninba oo mar walba intay isfuraan oo isqabsadaan haddana qiil iyo waxyaalo un raraadsada dadkaasna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa in muslimiinta qoysaska dhammaantood uu wanaag dhex dhigo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed xilli adag ayaa lagu jiraa raggana waxaan leeyahay walaalayaal dumarkiina u dhimriya dalqadihiina adkaysta wanaag ka shaqeeya raadiya islaax ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay in yuriida islaaxan yuwaffiq illahu baynahuma labada qof markay wanaag doonayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu waafajinaya laakiin qof walba qofka kale markuu muuqdo reerkaana la rabo in la burburiyo hadhowtii dhibaato weyn ayaa ka dhacaysa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dambi dhaaf iyo inuu mataqaanaa quluubta iyo reeraha noo hagaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh